qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Wajeer ayaa cabasho ka soo saaran goobta wasaqda lagu daadiyo taasoo lagu magacaabo good xaar oo ku taala xaafadda Cali Macow. Dadka ayaa inta badan sheegeen inay dhibaatooyin ku haysato good xaar waxayna sameeyeen mudaharaad oo ay kaga soo horjeedaan good xaarka. Goodka ayaa la isticmaali jiray ku dhawaad 25 sano. Qaar ka mid ah shacabka banaanbaxay ayaa warbaahinta la hadleen waxayna sheegeen inay dhibaatooyin badan halkan ay kala kulmaan. waxaan dawladda aan leenahay hanagala xira waxaan leenahay hanagala xira annagoo sababta u yeelayna ma artay dawladda dadka ilmihi nooga dhamaadi xoolihii oo nooga dhamaadi meeshoos daacun ka kacay dawladdii oo ma artay runtii aan u daab yeelaynin waxaan go'aan ku gaarnay haddaan han ugaasiintii ee macal culumadii ee macal shacabkii ee macal dhalinyaradii ee macal gabdhihii ee macal daa kastaan leenahay waxaan leenahay hanagala xira meel allah meeshay dawladda iyadu aragta hagaysa waxa way runtii shacabkan in badan aad u soo sabri wixii hadaan ka dambeeyay inuu sabray dad nool manihin ilmihi waa naga been ahad iyo sibdi waqtiga iskuulka aad jirin ilmaha waxay soo aadayeen godka xaarka markay soo aadaan waxay soo xabsanayeen alaabta dhacdi markay la imaadaan annaga waxaan dad xoolaleey eriga noo jooga eriga casirkii markaas xaafadda soo aadaa waxaad soo cabaa biyaha xaarka korfuulo markaad soo cabba cidda nooga imaanayiin annaka waa maalayna lowla wax ruux kasta oo naf ku jirto wixii aas cuno ayaas godnana neefkiyo biyo xaarka soo cabay yaa noo imaana mudane Qaasim Sheekh Xuseen oo ah wakiilka deegaanka township umatala golaha hoose ayaa sheegay in wax ka qaban doono cabashooyinka bulshada ka yeeray aniga ka baarlamaan ahaan maantanimadan waxaan qaaday insha Allah biil aan horgeyn doono baarlamaanka inkastoo fasax usbuuc aan ku jirno waxaan horgeyn doonaa komitida caafimaadka oo aan member ka ahay taasoo sharci hor istaagay aan geen doono waxaan marka ka codsanayaa dawladda iyo inta awood u leh in ay arintan joojiyaan in codsigii shacabkan ay soo jeediyeen la tixgeliyo waliba si u dhaqsiyaha qashinka magaalada laga soo qaaday raashinka dhacay iyo waxyaabaha limidka oo laga soo qaaday magaalada ayaa goobtan la iskugu keenaa maalin walba dadkana ay ka soo horjeedaan in lagu qubo waxyaabahaasi. Xasan Kaafi, Badacas 24 TV, ismaamulka Wajeer.